السلام عليكم صاحب يار رمضان كريم سنو دوادا كنا سو دوادا برنامج كني فلنقين تعيارها رمضان كي بشي بركيسنيد رمضان ayaan ku jirnaa qeybaheedii koowaad maalintii koowaad ayaan soo qaadanay alla qeyrkeedana waafajiyo soo dhawaada saaxiibayaal caawa ciyaara ayaa ka jira horyaalka Ingiriiska hal kulan ayaana laga dheeli doonaayo Arsenal ayaa cidla loo dhigayo waxa la yiri kaliga ayaa caawa ciyaaraysayo 5 saac oo fiidnimo ay soo galaysaa sidoo kale Jambaha ayaa kulamo laga ciyaarayo Karabaqi Newcastle Bodeglimt Inter Milan Club Brugge Atletico Olympiacos iyo Bayer Leverkusen la liigahana hal kulan ayaa ka jira Levante iyo Villarreal ayaa markaas soo gali doono sidoo kale Como iyo AC Milan 4 saac qadar 45 daqiiqo ayaa la daawanaya sidoo kale saaxiibayaal qodobada aad barnaamijkeena ku dhageysan doontaan waxa kamida Arbeloa taariikhda uu ka sameeyay kulankii xalayto UEFA oo amartay in baaritaan lagu sameeyo wixii xalayta dhacay sidoo kale xiriirka kubadda cagta Spain oo soo saaray kulanka finalka kubadda la Real halka lagu ciyaarayo Saka oo heshiis cusub saxiixay United oo mustaqbalka Rashford dhinaca kale u rogaysa Nicholas Jackson oo lagu soo celinayo kooxda Chelsea qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaa saaxiibayaal soo dhawaada haddii aad tahay saaxiib horeyta noola joogay leegta iyo sheerta nagu dadaal haddii aad tahay saaxiib nagu cusub oo hadda markaa nagu soo biirayna subscribe ka saaro waxa waaye halkan waa meeshaadii oo meeshii dhalinyarta ku soo biir saaxiibayaal ku soo dhawaada Jambaha caawa kulama ka jira kulanka ugu adag marka loo fiiriyo caawa la ciyaari doonana waa kulanka u dhaxeeya kooxaha Atletico Madrid iyo Club Brugge inta kale kulamada way iska fudud yihiin marka loo fiiriyo Arsenal ayaa sidoo kale inta soo gali doonta oo waxa way Wolves ay caawa la ciyaarayso waxay rabtaa inay hogaanka 7 dhibcood ay ku celiso Arsenal haddii caawa isku sii kuftana waxa way nabadeey ku noqonaya horyaalka waxa way waxa uma yaalaan way Arsenal qodobada kale barnaamijkeena waxa uu kamida tababar Alvaro Arbeloa xalayto waxa way wuxuu soo saaray bandhig aad u sareeyo iyo kooxda la qaatay oo taariikh ayuuna markaa ka sameeyay wuxuu noqonayaa tababarahan guushii xalayta Benfica uu markaas ka gaaray Vinina uu gacanta u galiyay wuxuu noqonayaa tan iyo 2019 tababarihii labaad ee si consecutive markaas u guuleysanaya kulan walbana dhalinaya gool 8 kulan aandhe 9 kulan oo soo ciyaaray Arbeloa 9kaas kulan goolba ma laga celin karo macnaha goolashiyaaba easy ka noqdo agtiiso macna Arbeloa inta hoos joogtid waa goolasho iska dhalinayaan lagu leeyahay 9 kulan oo macna Arbeloa kooxda hogaaminayay 23 gool ayaa markaas la dhaliyay baa lagu leeyahay waxa la xasuusinayaa sanadii 2019 markaas Manuel Pellegrini uu hogaaminayay kooxda 10 kulan oo consecutive ayna markaas sameeysay waxa waaye Arbeloa waa uu ku dhawayaa skorkaasi oo kulanka soo socda oo Osasuna la liigaha la ciyaarayaan todobaadkan ayaa lagu soo gabagabeyn karaayo waxa waaye hadii kulankaas ay gool dhaliyaan Real Madrid skorkaas sidaas ayuu ku gaarayaa macna Arbeloa skorkaas isaga ayaa markaas dhiganaya dhanka kale UEFA watii xalayto la ogaa ninkii Vini ahaa in markaan uu qaaq iyo quuqdi uu sii galayo watii Vini xalayto la cunsuriyay oo macalin Jose uu hadlay oo yiri waxa ma dhicin Vini Albitra uu tago yiri ninkan way caynooya sidoo kale Otamendi la ogaa inuu xabadka tusayo uu dhahay ma haysataa alaabtan ma haysataa lama oga waxa uu ku dhahayay laakiin dadka sportska ka faalooda waxay sheegayeen in uu lahaa Otamendi ma qaaday World Cup kama qaadayo ma haysataa marka Jose sidoo kale intuu soo hadlay wuxuu leeyahay ma jiraan wax qaldan oo la sameeyay garoon walbana arinkan oo kale inta way ka dhacdaa maxaa ahaa marka wixii xalayta dhacay waxay ahaayeen xalayto markii uu gool ka dhaliyay ninkii Vini Jr ahaa nin kale intuu markaasi ciyaartooyda kamida kooxda Benfica ayaa markaasi caayay ninkii Vinicius Junior ahaa ayuu markaasi caayayo waxa lagu leeyahay Vinicius ayuu markan ku tilmaamay Daniel waa lagu leeyahay Vinicius ayuu Daniel ku tilmaamay Daniel ayuu ku tilmaamay oo Vini taasina uu ka xanaaqay oo garsoorku u tagay wuxuuna yiri ninkan waa uu caynaya ninkan waa uu caynaya saas uu leeyahay garsoorihii waa istaajiyay ciyaarta baaritaan ayaanu markaas la sameeyay oo ninkii funaanadu afka gashto wax waa laga fahmi waayay taasa marka waxay keentay in ciyaarta dib loo sii wado kadib way hadleen ciyaartooyda gaar ahaan ninkii Kylian Mbappe aha wuxuu yiri qof saan oo kale inta ciyaaryahanka lambarka 25 kuma haboona inuu markaas ciyaaro Champions League waliba garoonka ugu fiican adduunka Bernabeu
inuu imaado kuma fiicnaba. Jose Mourinho uu la hadlay wuxuu leeyahay Vini waa la hadlay waa uu isdajin waayay waa dajin waayay waana isaga tagay ayuu markaas leeyahay laakiin waxan way ka dhacaan garoon walba waa ay ka dhacaan ayuu markaas leeyahay oo waxan waa wax cusub ma aha oo wax hadirtaan la bilaabayana ma aha waa wax dhaca ayuu markaas leeyahay macallin Jose sidoo kale Rosso ba qaatay oo waxa la leeyahay kulankii soo dhaweynta ee Bernabeu loogu sameyn lahaa isaga iska caraqaladay kadib arrimahaas markay dhaceen UEFA waxay haatan sheegtay in falkaasi ay baaritaan ku sameynayaan oo ay haatan dib ay u eegi doonaan baaritaan la xiriira cabashada Vinicius uu soo gudbiyay garsooraha ayaa la sheegay in haatan ba ay bilaabi doonaan UEFA waxayna markan ay raacaysaa ama habraaca rasmiga UEFA ay sameyn doontaa in labada dhinac ay ka dhaxayso arinka ay qiimeyn ku sameeyaan oo labada dhinac markan la fiiriyo waxaana leeyahay waxa la filayaa in UEFA ay baarto ayna ururiso warbixinadii garsoorka uu soo gudbiyay sidoo kale ay fiiriso muuqaalada cadeymaha la heli karo wareysiyana ay ku sameeysan labada dhinac oo arinkan ay qusayso oo la yiraahdo Vinio kale maxaa lagu dhahay waa kan kale intana maxaad adiga tiri haddii la helo dambigaas waxa suurtagal markaas ciyaaryahan Karin baaritaankaas laga guuleysto Vini haddii uu ku guuleysto baaritaankaas in ciyaaryahan kale ganaaxo ayaa la filayaa waxayna leedahay sharci adag ayaa ka yaala in cunsuriyad lagu sameeyo kubadda cagta gaar ahaan tartanka Champions League iyo markaas leeyahay bayaanka laga soo saaray UEFA waxayna markaas leeyihiin baaritaankan waa uu soo bixi doonaayo waana arki doonaa waxa ka soo baxa jawaabtana markii baaritaan ka sameeyna kadib ayaan insiinayna ay leeyihiin xiriirka kubadda cagta ee Spain ayaa sidoo kale iyaguna soo saaray waqtiga rasmiga ee la ciyaari doono finaalaha Copa del Rey oo sanadkan uu xiiso leeyahay finaalka waxa lagu qaban doonaa baa la yiri magaalada Cartuja ee Sevilla ayaa lagu andhe garoonka Cartuja ee magaalada Sevilla ayaa lagu qaban doonaa maalinimada Sabtiga Abriil 18 ayaa la qaban doonaa saacada markay tahay 10 habeenimo ayaa la qaban doonaa afar kooxood ayaa haatan wada jooga Barcelona Atletico Madrid Sociedad iyo Atletico Bilbao ayaa wada joogo lugtii hore Atletico ayaa afar ku xaqday Barcelona halka Sociedadna hal yeebar ay kaga tagtay kooxda Bilbao lugta labaad waxa la deeli doonaa March 3 bisha saddexdeeda ayaa la ciyaari doonaa garoonka Camp Nou ayuu ka dhacayaa kulanka Barcelona iyo Atletico halka March 4 ama bisha saddexaad afarteedana garoonka kooxda kubadda cagta ee Atletico Bilbao aan Real Sociedad lagu ciyaari doono labadaasi kooxood ku soo baxa finaalaha imaada magaalada Sevilla ay ku ciyaari doonaan finalka iyo garoonka la yiraahdo markaas la Duja ay ku ciyaari doonaan ayuu leeyahay xiriirka kubadda cagta oo cilaamiyay markan dhanka kale garabka kooxda Arsenal Bukayo Saka waxa uu saxiixay heshiis gaaraya ilaa 2031 taasi oo ka dhigaysay in mushaaraadkiisa sare loogu qaadayo heshiiskiisa waxa uu ka eegaa dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda taasi oo ugu dambeyntii keentay in Arsenal ay ka walwasho ciyaaryahankan inuu qaabka uu kaga tagi karo ugu dambeyn heshiis ayaa la gaaray rasmi ah ciyaaryahankan mushaaraadkiisa kor ayaa loo qaadayo waxa laga dhigay ciyaaryahanka ugu mushaaraadka badan kooxda Arsenal marka la joogo ayaa laga dhigayo 300,000 toddobaadka ayuu jeebka ku shubanaya ilaa sanada 2031 kooxda waa uu jeegaya wuxuu qayb la noqonayaa ciyaartoydii horeyta u saxiixday heshiis Gabriel Magalhaes William Saliba iyo Nwaneri waa ciyaartoydii horeyta hibada ugu siiyay ama markaasi u hibeeyay qandaraaskooda iyo waayahooda kooxda Arsenal ayuu qayb ka noqonaya waraysi ay soo saareen The Sun ayaa lagu sheegay in Manchester United aysan marnaba doonaynin inay hoos u dhigto qiimaha 30 milyan oo ay ciyaaryahanka Marcus Rashford ay ku iibinayso Rashford xagaagan ama ayuu ku joogaa kooxda Barcelona wuxuu dhaliyay 10 gool isla markaana caawiyay 10 gool Rashfordkii ayaa markan caawin iyo goolal laga helayo Barcelona way u bogtay waxay rabtaa markan ninkan inay markan qaadato oo si toos ah loo wareegto marka waxay leedahay waxa markan Man United waxay leedahay ninkan ma ka helino soo marabtid qaado 30 milyan leeysi ay dhaafi mushaaraadkiisa badan dhaafi 30 milyan nasiib marka leeyihiin kooxda laakiin Barcelona waxay leedahay ninkan waa fiican yahay waa ku moodmoodi karnaa laakiin 30 milyan waa nagu badan tahay ileen macnaha shiida jiro ma ogtahay shiida jiro saas daraadeed waa nagu badan tahay leeyahay ninkaas 315,000 toddobaadka ayuu ka qaataa Manchester United Barcelona waxay leedahay intaas ma u bixin karnaba annaga intaas ma u bixin karno waa nagu adag tahay marka saas daraadeed Manchester United
United waxay tiri anaga 30 milyan waa kaga samri karnaa ninka Rashford waa ciyaaryahan markaasi waa mararka qaarkood wax laga heli karo gool ku dhalin kara gool ku caawin kara aad ogtiin hadda inaa ku xamalataan Real Barcelona 10 gool ni dhaliyay 10 goolna ni caawiyay waxa waaye ninka qaata 30 milyan iska keena laakiin Rashford waxa la leeyahay wuxuu ku xirnaan doona bixitaanka iyo macalinka iyo waliba madaxweynaha kooxda Barcelona imaan doona macalinka Manchester United imaan doona iyo madaxweynaha Barcelona imaan doona ay markaasi ku xiran yihiin ku xiran yahay leeyahay heshiiskiisa waa sidoo kale United waxay rabtaa lacagtaasi inay hesho si ay u keensato qad dhexe cusub maadaama uu baxaya Casemiro iyo sidoo kale weeraryahan lagu xoojiyay safka Barcelona dhankeedana waxay mudnaanta koowaad siinaysaa daafac dhexe iyo weeraryahan lambar 9 laakiin waa dooqa saddexaad Rashford hadii weeraryahan la waayo Rashford ayaa noqonaya cidda ay ku bedelan doonto 30 milyan si haba bixisay say rabtaa ku bixisay 30kaas waa bixinaya ay leedahay hadii qof kale inta weyno Nicky Jackson waxa la leeyahay walaal boorsada si diyaarso xilli ciyaareedka markuu dhamaado Stamford Bridge iyo London taada ayaa ku laabanaysa oo Bayern waxay leedahay heshiiskii amaahda ahaa ee Chelsea kaga soo qaatay ee lacagta loo bedeli lahaa inaan lacagta sii bixinin ayaaba mahad ah way leedahay markaan waxaaba fikir aha inaan dhaho amaaha hadda ku qaadanaya dhawaa bixinaya Nicky Jackson waxa uu ku weerarsan yahay Jarmalka 5 gool uu dhaliyay hal uu caawiyay 22 kulan oo qayb ka qaatay dhamaan tartan oo dhan taasi waxay ka dhigan tahay in amaahdiisii kooxda Chelsea ay soo afjarmayso oo ciyaaryahankan soo noqonayo waxa lagu heshiiyay haduu ciyaaryahankan uu kalama badan oo markaas uu ciyaaro Bayern sidoo kalena Bayern ay ku qanacdo in 56 milyan ay bixinayso lagu qaadanayo ciyaaryahankan lagu iibsanayo balse taasi hadda uma muuqato mid rasmi u dhici karta wararka waxay sheegayaan Jackson inuu u furan yahay dib ugu soo laabto kooxda Chelsea oo iska sii joogaba maadaama tababaro cusub uu meesha markaas imaaday waxa uu rabaa inuu iska sii joogo Stamford Bridge tababaraha cusub uu ka raadsada kalsooni wakiiladiisa waxay qiimeyn doonaan sida tababaraha uu la dhaqmo xilli ciyaareedka dambe waxaana la arki doonaa si waxay markaas ku dhamaatay arinkiisa ama Diallo waxa uu leeyahay Ruben Amorim waa laga ceyriyay shaqada laakiin Carrick waa macalinka garanaya markaas DNA kooxdan waa macalin fahmaya halka ay kooxdu ay u baahan tahay wana macalin siinaya kalsooni weyn ay markaas leeyahay aad aan ugu faraxsanahay inaan ka shaqeeyo isaga waxa uu markaas nasiinaya buu leeyahay kalsooni iyo furhufnaan iyo waliba inaan sida aan rabno aan ugu ciyaarno annagoo qadiyadeena ku dheelayna wuxuu leeyahay inaad ciyaartaan waxa way hibadiina inaad soo bandhigtaan oo wax idinka inii wanaagsan u ciyaara taageeraha dartood u ciyaara naftiina darteed taasina waxay noo keenaysaa inaan si kalsooni leh u ciyaarno macalin Carrick waa ku wacdareynaya kooxda 5 kulan oo loo dhiibay ama 5 kulan oo kooxda leelinayay 4 ka mid uu badiyay halna barbaro ayaa lagu celiyay oo madaxdaashka ayaa markaas soo inkaartamay ninkii Ousmane Dembele waxa uu inkaara ku dhacday tani ku guuleysigiisii Ballon d'Or-ka wuxuu ka bixi laayay ninkan dhaawac isdaba jooga xalaytana markaan waa laga saaray garoonka 22 daqiiqo ama markaas 30 daqiiqo ugu horeysayba garoonka ayaa markan laga saaray Bayern waxa lagu leeyahay waa kooxda expectationka ama goolasha filashada goolasha kooxda ugu badan xilli ciyaareedkan waa lagu leeyahay 82 gool ay dhalisay 22 kulan oo kaliya Bundesliga laga ciyaaray waxaana lagu leeyahay waa 3.73 markaasi filashada goolka oo ay ku dhalin karaan mar walba goolka filashada ay ku dhalin karaan waxa weey waa 3.73 ninkii Lionel Scolani madaxweynaha tababaraha kooxda Argentina ama xulka Argentina wuxuu leeyahay diyaar ayaan u nahay inaan finalissima aan wajahno Lamine Yamal iyo xulkooda Spain wuxuuna leeyahay Yamal tacticada aan ku joojin lahayn haddaba waa ay noo sii diyaarsan tahay oo waxa waaye annaga diyaar u nahay hanoo yimaado ay markaas leeyihiin wax walba dhacana waxa waaye waa ka hortageynaa ayo markaas leeyahay sidoo kale inta waxa la soo saaray best UEFA markaas shax ama teamka UEFA markaan ugu fiican season kan ayaa la soo saaray afka hore weerarka waa Gordon oo Newcastle Mbappe iyo Lamine Yamal oo Real iyo Barca qadka dhexe Fatina Szoboszlai Rice ayaa ku wada jira halka difaaca Nuno Mendes Rodri Romero Virgil van Dijk iyo Llorente yihiin waxaana sidoo kale Portieriga la yiri waxa qaadanaya Hakimi ayaa markaas qaadanayo xaluu leeyahay ninkii Fini wali dhibaato ku sii socota Instagramkiisa wuxuu ku soo bustigareeyay ka bacdi ciyaartii ama jaaskii wixii dhibaatadii furfurtay jaaskii ayuu markaas soo dhigay sawirkii jaaska ayuu soo dhigay saana loogu soo jawaabay waxa leeyahay
daanyeera loo soo turtuuraya Instagram-ka maxaa ii geeyay ay markaasi ka maraysaayoo postiga yiriiska uu soo dhigay waxa weeye weli daanyeer ayaa laga daba ordaya wixii xalayta dhacay ilaa ay haatan kama daba harin ayaa markaasi leeyahay war farxad la ay helayaan ciyaartooyda ama kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxa weeye ciyaaryahan Pedri Almeistro waa uu soo noqonayaa waa lagu leeyahay waxa waa isbuucan soo socda kulanka soo socda diyaar ayuu u yahay lagu leeyahay ninka waa dareemeen Barcelona qadkiisa dhexe markuu ka maqan yahayna Barcelona waxa waaye aad bay isugu dunsan tahay laakiin ugu dambeyntii waa uu soo noqonayaa ciyaaryahankan dib ayana markaasi loo helayaa dib ayuuna markaasi ugu soo noqonayaa saaxiibayaal soo dhawaada haddii aad tahay saaxiib horeyta noola joogay like iyo share haddii aad tahay saaxiib nagu cusubna subscribe ka noo saar mahadsanid